السلام عليكم أصحابي kusoo dhawaada channelka B3CS maanta waxaynu rabnaa inaan sharxno qaabkii aad u samayn lahayd flash bootable ah oo Windows 10 u duubi lahayd si aad ugu shubtid computer kale marka koowaad waxaa soo booqataa browseradaada mid kamid ahna waxaa isticmaalaya Microsoft Edge marka search barka waxaad ku qortaa Windows 10 Media Creation Tool oo ah tool loo isticmaalo in lagu soo dejiyo Windowska so marka ugu horeysa link ugu horeeya ku dhufo oo shirkadda Microsoft ah wuxuu ku geyn doonaa pageka Windows 10 so scroll it down hoos soco then waxaa dhahdaa download now so markuu soo dego waxaad tagtaa computerkaaga anaa hadda wuxuu igu soo degay qaybta downloadska waxaa ku siisaa double click si aad u rangaraysid waqti ayuu qaadanaya marka xoogaa sug taasoo ku xiran processorka computerka aad isticmaalaysid iyo internetkaada xawaarihiisa ana hadda waa boobsiinaya muuqaalka inuu dheeraado marmo so stakeload usoo bandhigi doonaa license and terms then accepted so ayadana xoogaa waqti ay qaadan doontaa tanna stepskan xoogaa dul qaado then waxaad doorataa create installation media USB iyo ISO file ahaan markaan waxaad doorataa architecturekaada asaa kusoo bandhigaya next iska dheh then USB flash drive dooro flashkaadana kasoo deli computerka then magaciisa ku dhufto haddii flash badan ay ku jiraan meesha then hadda wuxuu kuu diyaarin doonaa inuu kuusoo dejiyo processkan wuxuu qaadan doonaa ilaa 100 ayuu ka gaarayo waqti ayuu qaadan doonaa marka sug ilaa uu 100 ka gaarayo so marka uu gaaro 100 haddana wuxuu kuu diri doonaa step labaad oo ah verifying downloadkaada inuu xaqiijiyo iyadana waxay qaadan doontaa ilaa 100% waqti ayay qaadan doontaa iyadana iska sug ilaa uu yacni kaaga dhammaynayo marka ana hadda waa buusinaya muuqaalka so markuu gaaro 100 wuxuu kusoo bandhigi doonaa inuu dhameeyey dan waxaa dhacdaa finish dan setupkan ayuu kaa clean gareyn doonaa hana clean gareyn ku dhacay shaashada xirin waqti ayuu qaadanaa asaga ayaa clean gareyn doonaa marka yacni shaashada ay xirto markaas waa ka bixin kartaa flashka aad uu clean gareeyay intaas waaye oo ku maasantaa daawashadaada marka